التو هذه الطائرة الخاصة، وأي طيار من هؤلاء 100 طيار يفوز في الفيديو سيحتفل. يسحب طائرته ذات 18,143 كيلوغراما. أنني سأعود للنجوم. يا إلهي، أوفيا بوعدهما، أوفيا به. duuliyahani waxa uu ku guuleystay tartan MR-Beast uu qabtay, isagoo boqolaal duuliye kaga guuleystay diyaaradani qiimaheedu uu gaarayo $2.4 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Hase haatee, duuliyahan ayaa ciidamada booliiska ku soo qabteen isagoo diyaarad ku sida Draggis qiimihiisu gaarayo $3.6 milyan. Haddaba diyaaradani ma diyaaradii uu ku guuleystay baa mise waa diyaarad kale? Muuqaalkeena maanta ayaan ku eegi doonaa. Soo dhawow daawade. Waxaan jeclaan lahaa amaseba aan jeclahay inaad muuqaalka lagta siiso si uu meel dheer inoogu gaaro. 6 bilood la soo dhaafay, MR-Beast ayaa tartan ka qabtay dalkaasi Sacuudi Carabiya. Tartankaasi ayaa ahaa mid ay ku wada tartamayeen boqolaal duuliye. Ciddii guuleysatana waxa ay qaadanaysay diyaarad qiimaheedu gaarayo $2.4 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Xujooyinka qaar lagu xukumay ayaa ahaa in qaarkood laga soo tuuro diyaaradda oo cirka ku jirta, afka qalaadna loogu yaqaano skydiving. MR-Beast oo ku caan ah challenges-ka ayaa challengeyo kale u keenay sida in gacanta la saarto diyaaradda oo socota. Sidoo kale waxaa ka mid ah in hal far la saarto misna hal lagu istaago. Ciddii ka qaadana sidaas ayay tartanka ugu haraysay. Ugu dambeyntii waxaa dhamaadka isla soo gaaray 3 baylood oo mid walba muujiyay dadaalkiisa. MR-Beast ayaa u keenay 3 sanduuq mid walba oo bayloodyadani ka mid ah. Sanduuqyadaasi mid ka mid ah waxaa ku jirta waraaqda guuleystaha. Haddaba waa in mid uun guuleystaa. Daawada guusha qof walba kama wada qosliso oo qof kaliya ayay ka qoslisaa. Oo halkaas guusha waxa ay ku raacday Captain Trizy, kaasoo guushaas u riyaaqay. Kabtankani waa ninka ay sheekadeena ku socoto. Haddaba kabtankani dhalashadiisu waa Jamaican. Hase haatee, diyaarad uu duuliye ka ahaa ayaa ciidamada booliiska ku qabteen Draggis qiimihiisu gaarayo $3.6 milyan. Dadka badanaa waxa ay isweydiinayeen ma diyaaradii baa muqaadaraadka lagu qabtay mise waa diyaarad kale. Diyaaradani waxa ay kasoo duushay North America, waxa ayna kusii wajahneyd Mareykanka. Hase haatee, diyaaradani waxaa lagu qabtay magaalada Paraguay. Waxyaabaha fududeeyay qabashadiisa waxaa ka mid ahaa badanaa diyaaradaha kasoo duula North America kuna sii wajahan dalka Mareykanka waxa ay maraan baaritaan xooggan, taasoo keenta in halkaas lagu qabto cid walba oo sidata Draggis kahor inta aysan gaarin dalkaasi Mareykanka. Taasi ayaana qayb weyn ka qaadatay qabashadiisa. Hase haatee, diyaaraddaasi ma ahayn diyaaradii sida rasmiga ahayd uu ugu guuleystay. Waxa uu kaliya ka ahaa co-pilot caawiya duulimaad. Sidoo kale diyaaraddan waxaa lagula qabtay isaga iyo 4 kale, halka kabtanka duuliyaha diyaaraddaani dalka isagaga baxay saacado ka hor inta aanan la fulin mishinkaasi. Ilo warbixineed ayaa sheegaya in Captain Trizy la sii daayay kadib markii uu si wacan ula shaqeeyay qolada baaraysay, waayo cadeymo dhab ah laguma helin, balse baaritaan ayaa u harsan. Daawade, haddii aad diyaaraddaasi qiimaheedu gaarayo $2.4 milyan aad ku guuleysan lahayd, maxaad ku sameyn lahayd? Ma iibin lahayd mise waad ku dalxiisi lahayd? Wixii fikirkaaga comments-ka noogu reeb.